kadib markii sanadkii hore magaalada Cabudwaaq laga furay xarunta cilaajka ee Darul Shifa ayaa mar kale sanadkan waxa dib u soo laabtay Sheekh Maxamed Rashiid Garowe kaasi oo ka hirgeliyay magaalada Cabudwaaq xarunta Darul Shifa balse sanadkan magacii laga bedelay oo loo bedelay xarunta markaasi Darul Amal ahna xarun cilaaj oo la isku quraan saaro Sheekh Maxamed Rashiid Garowe ayaa markii uu soo gaaray horaantii bishii saddexaad magaalada Cabudwaaq waxa markaasi xaruntiisa soo booqday dadweynaha aad u fara badan kuwaasoo intooda badan xarunta u imaanayay in lagu quraan saaro isla markaana laga daweeyo dhibaatooyin ay ka tabanayeen noloshooda oo saameyn ku yeelatay waxaana kamid ahaa dhibanayaashaasi in buddo ah la tacaalayay dhibaato soo gaartay markaasi inta badan noloshiisa taasi oo xataa qatar ku gelisay noloshiisa Maslax Ismaaciil oo nin dhalinyaro ah kana shaqaysan jiray magaalada Cabudwaaq kadib markii muddo 6 sano ah uu la ahaa bukaan socod noloshiisa markaasi saameyn badan ku yeeshay jinka kaasi oo inta badan waxyeello u geystay bini'aadamka waxaana Maslax uu sheegay markii xarunta uu yimid kadib inuu noqday mid caafimaad qaba wali soo kaxeeyay meeshii baa la keenay alxamdulillah rabbil caalamiin waan fiicanahay wala ibaaray dib la iqra saaray dadka wayga waxba isbedel oo sameyn waayay waxyaabihii sheekhu sameyn jiray oo tastiga ku ogaan jiray qofku wixii dhamma la mariyay waxba wayga bedel waxba isbedel waayay caafimaad badan baan dareemay ku yaroon dhalay madaxa boogi waxba ka soo bixi jiray isagii madaxa hadda waa nadiif gabadha madaxa laga qaban jiray iyada hadda waa alxamdulillah way fiican maalinkii saas la iqra saaray xafadii yaa waxa la kulmay gabadhii wala hawsh guriga way furan Maslax ayaa sheegay in xataa jinku uu geystay qayb ka mid ah jirkiisa dhibaatooyin taasi oo ku keentay in mararka qaar uu u safro dhakhtar dhinaca maqaarka ah Maslax ayaa ka waramaya dhibaatooyinka jinku uu geystay xataa qayb ka mid ah jirkiisa kadib markii gacantiisa oo xabad ay ku dhaceen uu ku arkay calaamado hore aan loo arkin oo dhinaca maqaarka ah taasi oo uu aaday isbitaalada qaar si ay uga soo daweeyaan balse waxba laga qaban waayay يعني qaabka la yahay iyo xanuunadayda noocan dareenka aan oran karo noocaas la yahay ma jiraan kelida dhinacaana waxaan u qabay inay dhaxtaalo kale mararka qaar bal qaban jiray bogga waxa ka dareem jiray labo badan waxa la ii kala goyn jiray shuban iyo matag oo kale jirka waxa ka dareem jiray kaboobiyo waxa xilligan ay waxaan ay ugu bilowdeen qiyaastii waxaan qiyaasay aduu looga furaha iga jirmay yaani xadaaradii iyo firfircoonidii iyo yaani shaqadii iyo waxaan qabsan jiray qaabkan bulshada ugu la noolaan jiray 6 sano 6 macnaha sano xilliga gaarigaas uu la dhacayo intii ka dambeysay waxaan ahayn aan sidii hore ahayn yaani shaqo ahaan iyo garanaysaa hawlahay maadaama sida ahaa waxaan uu qalbi ahaan iska dhaadhiciyay gacanta naafada ka soo gaadhay waxay ku kanta cilado badan gacantaydu waxay samaysay googo yaani inay googoodo ay soo dhaxdhacdo haddana waxaan iyadii ku mithalay inay tahay gacanta saasa xabada sunteeda igu dhacday meesha markuu gaari wala dhacay xabada igu dhacay waan dhaawacmay gacantaana ka dhaawacmay waxaan markaa arkaysan waxa sada arkaysan waxa weey waa waxyaalii googo ah gacantu yeelatay waxa weeyaan muddadaas 6 sano ah wixii ka dambeeyay waxaan ahaa socod Maslax waxa uu sheegay markii uu gacanta ka naafowday kadib in raxiibkiisa uu u gaday gaari uu ku shaqeysto oo nolol maalmeedkiisa uu ka raadsado balse gaarigaasi oo muddo 2 sano u shaqeynayay uu noqday mid markaasi cilada la soo gudboonaada oo hadba wixii laga bedelo ay markaasi meel kale ciladii ka gaarto ugu dambeyn waxa uu sheegay Maslax inuu ka qoostay gaarigaasi waxaana uu sheegay mararka qaarkood in ay la soo gudboonaan jiray xanuuno taasi uu kaga badbaadi jiray in uu tukan jiray 2 ragco oo sunna inta badanna uusan ka soo tagi jirin gurigiisa isagoo weysa qaba isla markaana xaaladiisa caafimaad marka ka dambaysa ay soo tareysay waxaana markii dambe uu go'aansaday in uu aado dhakhtar markaasi magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay dhaqaatiir masaari ah waxaana ay u soo qoreen dawo balse waxa uu sheegay intaasi aysan waxba ka bedelinin markii uu dib ugu soo laabtay deegaankana sidii hore uu u xanuunsan jiray oo mar labaad u xanuunsaday qiyaastayda anigu saan isleeyahay أخيراً هو شوي نين عن صاحبنا هاي بيلسه هلا يحوي لي صاحب ما دام أو عن تكساس نقطي وحن كوا عاون كرا جاري هرب كوي بني يلا فاهم وسعت جاري جراوي بي أفرت وحن ملاين يلا بس هنو بنسي عادية أو يعني سعت كسية لا بس هنو يفرست
si toos ah markii horeysa waal buu iga qalloociyay waxaan u geeyay injineerka uu fiiriyay waalkii baa la toosiyay lamdad baa haddana waxaan ku celin weynay qolyada falilahi alxamdu injineerkii markaa anagoo dhalinyaro badana oo anigu laftirkay birta waxbaa iga bilaaban dhalinyaro badana aan wixii fiirinay waxba waa ku celin weynay link stop hal yiraahdo marinay waa gelinaa kuwa kale yaro injineer ku xigo deecaani farsamo ahaan ku xigaan u yeeray waa ku fiirin waa kari wayn injineerka ka qaaday akhris buu sameeyay akhris saasa oo ahaa akhiran gaari salafkiisi waan ku rafaaday LG waxyaabo la galiyay aduu salafkii falilahi alxamdu waan ka gudbay wuxuu sameeyay hadana inuu iska damaba soo soconaya dam furaha iska jaro gaari fiiri dablo u geey waxa kan ka injineerkii u keen gaarigan baakka guban baakinkii baan dalbay xamar baan ka dalbay waa la ii keenay waa la saaray baakinkii markii la saaray gaarigii oo la yiri hala kiciyo gaariga istaara ayaa waxa jabay bool 10 aan weynay boolkii 10 ka dhulkan ka raadinay boolkii markaan weynay bool kalaan soo qaaday meeshii baan ku xirnay waa istaarna gaarigii albarakaamka kore godka u dambeeyo ka jabay hadana baf istaarka laftirkiis lagu istaariyay waa fiirin gaari wuu istaarmay laakiin wuxuu sameeyay codkii ka bedelan fadhadhaq bag waa godka u dambeeyo hawada waa la fiirshay albarakaamkii baa jaban albarakaamkii baa waxaan sugayay muddo gaari kala laga soo furay waa la ii keenay hadana geerkii albarakaamku lahaa iyo geerkan baa siilan waa injineerka kala bedelay geerkii baa la geliyay geerkii kala laga saaray waa lagu xiray waa la istaaray gaari markii la istaaray waxaan idinka booday maalin maalmaha kamid ah ayaa marka uu damay oo baakinka la saaray inta aan la saarin ka hor baakinka inta aan la dalbin ka hor ayaa waxa la raytoor oo aanu ilihiisu ka xidhan ka istaagay raytoori waan soo furnay injineerku wuxuu yiri raytooraha soo fura kala fujiya si sakhiran waan soo furnay banaanka soo dhignay laba nin baan ahayn dismiska wareey ku qoray baa waxa mudayno oo ama ninkan uu jabiyaa ama jab baa amar ka yadhay xaq sarcaagi sare qafiski si macnaha mucjisal qafiski markuu jabay waa iska dhignay raytoorihii baan weynay mid samaysan gal intaas yaani waa waxyaabahan ka soo booday kamid ah wixii ma wada xusan karay laakiin waxaan garanayaa in lacagta iga gashay kun kale ay madaxa la galayso sida hadda ninkii hadda alaabtan ii soo dhiibay lacag alaab $600 ku fadhiyo waxaan ii soo diray يعني وهلابت هذا الروح أكثر كذا ما كان بدله شو كان قارك ولايك جارين نوع عسها باكن كي مركل الساري وهذنا لك عيي كلاي كرب ديمو وكر باكن كلام دلبي حتى أنا مرة لبا باكن كي مركل دلبي وحوي إنجنير كي تستات قالقيا بينو دقيق تستات دلبو تستات يبغى ليه كام وان ساري سنة باكن كنا واسار فرع الجروي ملا waxaan hadalladaan waxa kamid ah gaarigan maanta biskit wanjiidaya taariikhda gal halkaas aan u jeedaya noo gubaya basiimo ku shaqeeya sal hada gawaarida dadka ka kaxaysataa heshaay nin kibir u gubay gaarigiis iyadoo akaanaysa farahan ka qaad geershan iskaga daayay marka xanuunka qaabka laga qaban jiray anoo jooga iyo pressure ku dhacay hal mar marka waxaan sameyn jiray salaad sunnah baan ku degdegi jiray marka ma sinna xidin ah waxaan noqon jiray bakada wadnaha mar inta la dhufto أصلها مطير ربيبا كويسة شوف ودم بيقوم بيجري يعني تلاعب مرة كرتي وانجرير تشري بوديها شركة سنة حدنا مركب ويسو هذا قبي أنت بظنت ويسلعان أنا هاي بيوحس بيسس يقول أجر ويسدا كنت دقيق تشري ويسدا مركب كنت دقو لا مرة عصونا أنت كنت تشري ونفس أخيرا واحد علي إن عن كلامه أو عن كلا شغالي يعني شو بني متجي بسببان مر لو تشر حمر باللي قاضي مر هرجيس على قاضي دكتورك وحبو شيء وقضية دكفر وان هي نيجاتيف فقط وح معناها حنون اللي جميل والله مساعدة إنه تجي هدول بيسوي هذين حاجة يرو الفشينا إيش بيلوري يربان كارلي دو ذا سقاط والله يقرأي دو ذي حبو يجيب دليل هل شامع بالي صار فلله الحمد عادي بصباح ما حسيت دوت في عنده غير كاجي أبو ضغط ما كسودري markaan saa u imid een hooyadii iyo eheliyadii aan ka tagay aan salaamay joodarga ii dhigeen aan ugu talagalay inaan ku nasto waa ka dulkici waay bartii baan ku dhacay waxa la sameeyay marka
علماء لا يقول يري برتبة لقوا قرآن ساري اخترك بالله الحريري وحيد داود النوع عاصر حلو قاضو مقالة الإنشوجنا حلقة صار وميل 100 حلو صار أو يعني كو داود كسر دمست داودي بس صار دمستي داودي مركز صار دمستي وان صار لفتين مقالة هذا مركز حلقة سوق لي وضبط قلب يعني وحنا نقضي عندها إنتاجي نحسن أو مكان أو قبل كلسين معلمينتي قاعدين كمية وحيين معلم محمد منك أنودني في السجن هذا كان قرنا يا سعادية والله كان حافظ ديوان يبي سعادية صلاة ظهر بنتو كذي كما كذا برتبان كل عام عصر كيف وحنا صوب ميرس أنا صدق مع القرآن وأن قرنا أذى رأي دور فديان يقول حقين صلاة ظهر قريبة يعني قليقة صلاة عصر بالله الحمد عادي بقى نقضي وان روناضي المهم اسكشف شغيساني مالها قانمين دو نختار كيبا مر الله حدي اما ما قران كروي نينك دي انت سدوا الله قري ولا بجر انا وحو صغ waxba ka bedeli waayeen waxba ka garan maaye quraan saar iyo waxa la geeyo quraanka markii lagu sheegay quraan saar hal la geeyo meelaha cilaajada iyo asirada aadid ma ogoli anigu la fahaan nafahaad marka iyada ma ogoli nin aan saaxiibanahay oo xid leeyahay ayaa igu soo kalahay qaaday meel xigay cilaaja meeshii baa lagu quraan saaray waan roonaaday soo noqnoqotay biriyo kale inaan imaada leeyahay talagalay matigin maslax oo ah nin dhalinyaro oo aad u furfuran isla markaana dabeecadda uu dadka kula socdo ay tahay mid aad u wanaagsan ayaa mid kamid ah saaxiibadiisa isagoo xanuunsan waxa uu markaasi kala tashaday bal in la geeyo mid kamid ah xarumaha cilaajka ee dadka lagu quraan saaro halkaasi oo uu tagay maslax kadibna quraan lagu soo akhriyay balse isbedel saasaan u badan uu san kala kulminin taasina waxay ahayd in muddo 7 bari ah quraan lagu akhriyo oo quraankaasi أو حسكت دريمو بلسه مركا الله كل دمعسين هاي إن تعافيمادو وحلقوا هالسينية وقت أن أدي لهاي قبة قرآن ساركا وحاولنا مصلح تدبدي بريء الله شيء إنه يماد حرمت قرآن ساركا أوسن آدينين هالكاس أيام مركا لمصلح وحاو كان نقضي بكا صعد لدى على دعية حنوكا ووجي سجين كني وقدام بين مصلح وحاو سوء آدي إسلام مركا وقان صدي إنه يماد حرمت علاجك دار الأمل halkaasi uu kula kulmay Sheekh Maxamed Rashid Garowe oo isagu markaa joogay xarunta cilaajka waxaana masrax markiiba lagu bilaabay quraan akhris iyadoo markaana la siiyay dawooyinka la isku dabiibo ee xarunta cilaajka quraan saarka daarul amal ay dadka inta badan siiso taasoo ah dawooyin dabiici ah maslax ayaa soo toosay isagoo moodo sidii qof seexday oo hurdo ka toosaday aan ahayn sidii markuu xarunta imanayay caafimaad badan dareemaya waxaana gurigiisa uu ku laabtay isagoo caafimaadkiisu yahay tam gaarigii muddada 2 sano ka fadhiyayna markiiba waxa lagu xiray qalabkii laga bedelay oo halaysnaa kaasi oo aan qabin markii horeba wax saasa gaarigiina waxa uu ku shaqeeyay idamka le iyo markaasi quraan saarka lagu sameeyay maslax meeshii kuma laaban waa soo dhacay marka falla alxamdu xaruntan sheekh Maxamed Rashid baa la keenay waxa ay keenay isla ninkii maalinkii hore keenay baa keenay meesha ninku waa saaxiibkay يعني محمد ديو بس هو إيماننا مركز الله فيري لكن آخر ده واحد سكوت أحوا صاحبها وجنة يسكتي كرا هو يدا إنما دلنا أباه إنما دوانين دل يرى وصاحب كيا نيجا أبي يقف كرايم ويمشوا كاني مالك وله الرئيسي أو اللي كاني إن عن إلين كسو قالوا مرسي سعودي وقرن كرامير كي أنا مثل حهان لكن صلابت كي حالة أنا كنت ريم قرن أخيرا شيخه إلى تغوريا سداتها وفي عنها ولا كاني سدح بريب وأخرس كي يقصعني شيخ وحي للدواء حلاق هذا نكان مالك كي كوبات أو اللي كان أساس نقضي من الدواء نوع سقري بريسكريبش كي ولا كاني ويلكي كان واضح يعني ماشي نصيحة الحمد لله رب العالمين قياستين هذا واحد سليه تدبري أيوه لقيت شو أوكي walaalayaal dhibaatooyinka jinka uu geysto bini'aadamku aaday u badan yihiin balse waxa aad kaga badbaadi kartaa adigoo mar walba Allah subhanahu wa ta'ala salaadiisa badiya adkaartiisa akhriya mar walbana xarumaha markaasi jinka ee qashinka marka aad marayso adigoo basada adkaarta lagu talagalay in markaasi lagu xirto waa kan mar kale Sheekh Maxamed Rashid Garowe oo ka warbixinaya caafimaadka uu helay maslax iyo dhibaatooyinka jinka uu geysto bini'aadamka إن شاء الله بإذن الله تعالى ولا ليال ولا الكين سيده هو الرمي دباتوين فربضان أو تاكوا وين أيو سمايا كفار الجن
iyo waa acwaanuhu waxay sameeyaan maalin walba waxay u kulmaan in ibni aadamka iyo durriyadiisa ay maaragtay ay ku xambaaraan sidii ay dambiye waaweyn u geli lahaayeen irtikaabul kabaa'ir oo kale ama macsiyo oo kale dhibaatooyinka jinnigu insiga uu ku hayo walaalayaal waa fara badan yihiin qayb waxaa jira quraanka ilaahay akhrista adkaaraha maaragtay galabtii akhrista adkaaraha subaxdii akhrista in aayatul kursiga ku seexda iyo labada aayadood ee baqara u dambeeya iyo mucaawadataynka insha Allah biidillaahi ta'ala sidaas ayaad kaga badbaadaysaa jinniga maadaama inagu aysan arkin oo aynan arkaynin isaguna ayna arko dhibaatadiisa sidaas ayaa laga badbaadi karaa. Bashiir Yuusuf Nadaara magaalada Caabud Waaq waqooyiga gobolka Galgaduud.